uqaasha ee dhulbahantana waxaan leeyahay meel walba joogtaan masiiba allah idinku ride muslimka badbaadiya aad mas'uulka ka tihiin masiiba tihiine waaba idinku dhacdaye muslimka badbaadiya maganta idin ah waxaad la aamusan tihiin garan maayo gashaanti aamuska lagu meheriyaa ina kaahinow tii qayaad iyo bahar sama ka dhacday midaad adiga mas'uulka tahay ahayd oo aad ku hanjabtay maalintii haddana waxaad laascaanood u timi inaad siyaad maxamuud dhaxdiisa ka isku dirto aqoon-yahanka meesha joogana waxaan leeyahay ee jaamacadaha ka dhiga adeerayaalow dadka ha iska celiyeen dadkee iskuullada faca iska celi ugu dhiga waxaana ka baqayaa ilaahay caradii inay idaa zilzilad idinku soo degto dhulka idinla gariiro idinla go'o laascaanood waxaan caalamka ka dhicin baa ka dhacay dad islaama waxaa lagu samayn baa lagu sameeyey waxaad moodaa in dadkii lahaa dhulkana dad baabanba ay yihiin dadka dhulka iskaleba dad baaban ay yihiin waxaa u talinaya nin kor ka yimi oo ina kaahin la dhaho oo dadka meesha ku laaya sidiisaba 83 qof baa la dilay meel loo raacday markii la waayay oo la garanayo kii ugu dambeeyay ciidanka ay dileen uu haysta ninka magaalada haysta ee hadda soo saaray baaqa in dadka la saaro waxa ayaan darro ah dadka eeganaya ee culumada ah ee aqoon-yahanka ah ee ganacsatada ah alla ka cabsigu markuu yaraado cadaabti ifka lidinku keenayaa reer laascaanow maydin awoodi waayin maydin hadli waayin waxaad la aamusan tihiin waa in dhaqaale ay ku haysata faradufankood iyo afka wax loo mariyo sidii dawacadi intaana waad iska qaban weydeen intiyo tabar dhigtay oo irsaaqada halkaa ka gashayna waa daba taagan tihiin haddaba shacabka la tarxiilay maanta laga tarxiilay laascaanood waxaanu cadaynaynaa Soomaali weyn u cadaynaynaa in laascaanood dadkii lahaana ay dad dhunsan yihiin ummadda soo saartayna ay yihiin nimanka sheegta Somaliland haddaba Somaliland yaa ku dhaqan wey hargeysa yaa jooga waxa joogta Oromo waxa jooga Ethiopian waxa jooga kuwan lamid ah hadda la jiidayo sababta laascaanood inay cambaari korto loogu raadinayna waxa weeye shacabka halka u dhashay iyo qabaa'ilka halka u dhashay in ummadda islaamka lagu diro ayaga haddaba waxaan cadaynaynaa awood ay u leeyihiin ma jirto laakiin maalin waxaa jirta la xisaabtami doono qofka ilmihiisiyo kala maqan la waday qofka dharkiisii xataa aan loo ogolaan ganacsi bay dadka ku haysteen ma ahayn dad baahan oo tuugsanayo wadooyinkii bay qarribeen la dhahayo ma ahayn dadka dilaya oo bareer loo hayo maanta qofkii qof dila ama kismaayaha jooga ama hargeysaha jooga ama xamar ha joogo waa wax la qaban karo oo la xukumi karo cadaalada la horkeeni karo haddii wax cadaana lagu hayo wixii ay Somaliland disha haddii loo saarinayo dadka ka yimi koonfur galbeed waa ayaan daro laakiin in yaroo kaftama aan saare haddii wax la tarxiilaya xaaska Faysal wacali waraabana hal la tarxiilo de waa reerkaas hargeysay joogtaay waxa loogu diidayaa tarxiilka haddii ina adeerkeed la waday eedadeed la waday abtigeed la waday inay iyadu joogto maaha waa cadaalada siday tahay fuudiyaha waa ku rabaa waana kaa fanfanayaa weeye wixiin ina kaahinow waxaad isku dirta beela ka mid ah beelaha dhulbahante tii qayaad iyo bahar sama ka dhacday midaad adiga mas'uulka tahay ahayd oo aad ku hanjabtay maalintii haddana waxaad laascaanood u timi inaad siyaad maxamuud dhaxdiisa ka isku dirto laakiin in muddaad raadisay raajicisay way dhici weyde rag culus oo kun hadday gaadma lagu dilay haddii bareer ay isaga dilaan iyo haddii baahi loo dilaba aad adigu dilaysid weeyaan haddaba aad tarxiishide inteed ku sugnaan kartaa dhulkan waxaad ku sugnaan kartaa inta shacabka iska leh habisada alla ka qaadayo culumada laascaanood mid baan oranayaa kolay beesha caalamkaad ku jirtaan dad danaystaa tihiin dad ka ganacsadaa tihiin